labadan wiil ee isla dhashay mid waxa uu faafinayaa diinta Kirishtaanka midna waxa uu faafinayaa diinta Islaamka soo wax la yaabo maahan wiilkan magaciisa waxa la yiraahdaa Kaafi waxa uu la dhashay wiilkan aad baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay ku arkaysay isagoo dhahaya waxaan ahay Kirishtan oo dadkana ugu yeeraya in diinta Kirishtaaniyada ay qaataan oo Nabi Ciise Ilaah ka dhigtaan laakiin Kaafi waa uu ka duwan yahay walaalkiis oo waa nin isagoo qayrka iyo diinta Islaamka faafiya sidoo kalena dadka la wadaaga waxyaabaha wanaagsan ee diinteena ku saabsan inkastoo wiilkan kale ee lagu magacaabo Master Fawzi ee hadda gaaloobay oo isaguna markiisii hore sidaan oo kale ku soo bilaabay oo uu ahaa nin wanaagsan oo diinta Islaamka iyo taariikhda muslimiinta ka hadla taasina waxa ay sababtay in wiilkan la dhaho Kaafi ay dadku ku yiraahdaan adiguna amaad wadadiisa raacdaa oo aadna waxba ku kala duwaneyn kadibna waa uu soo hadlay oo muuqaal ayuu soo duubay waxa uu sheegay in wiilkan uu la dhashay laakiin maanta wixii ka dambeeyay uu bari ka yahay asaga iyo diintiisaba oo uusan shaqo ku lahayn nasab ahaan labada wiil way isla dhasheen oo waa walaalo walina waxa jirta dad ay waxyaabo iskaga qaldan yihiin oo mar waxa isku qaldayaan labada wiil marna waxa isku qaldayaan wiilkan gaaloobay ee lagu magacaabo Fawzi beforetiisa iyo aftertiisa oo markii hore waxa uu faafi jiray qayrka iyo waxyaabo diinta Islaamka ku saabsan haddana waxa uu faafinayaa wax gaalnimo ah oo Kirishtaannimada la xiriira labada mar muuqaaladii uu sameyn jirana waxay ugu wada jiraan isla TikTok-giisa oo laga soo wada helayaa sida darteed dadka qaar waxay u maleeyaan in isagu xitaa laba qof uu yahay oo mid gaal ah iyo mid Kirishtan ah ay u kala qaybsamaan marka maanta wixii ka dambeeyay waxaad ogaanaysaan wiilkan lagu magacaabo Kaafi isagu waxa si shaqo kuma lahan waxa uu sheegay ninkan inay wada dhasheen laakiin uu bari ka yahay oo waxa uu qabo uusan la qabin isagana sida ka muuqatay waa nin aad u wanaagsan oo diinta Islaamka iyo qayrkaba faafiya halka wiilka kale ee gaaloobay oo maanta oo dhan ku jiro in diinta Kirishtaaniyada uu ka sheekeeyo Nabi Ciise hal caabudo uu dhaho sidoo kalena live inta soo galo live-kiisa dhexdiisa lagu caayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii aad fiiriso wiilkani xawaaraha iyo fudaydka uu ku socdo iyo sida fudud ee maskaxdiisa loo bedelay waqti yar kadib waxaad arki doontaa isagoo soo calaacalaya oo ooynaya oo muruga iyo dhibaato ay haysato oo mar ay xeere iyo fandhaal kala dhaceen ogaanaya in wada qaldan uu hayay waan arki doontaan asagoo ooynaya oo ku calaacalaya dhibaato ayaan dareemayaa cariiri ayaan dareemayaa iyo waxba noocaas ah sababtoo ah maba jiro qof ridoobay oo diinta Islaamka inta ka ridoobay nabad iyo nabadgeliyo iyo nolol caadi ah ku noolaaday yacni waxa si toos ah u dhibaatay doona dareenkiisa iyo shucuurtiisa waad ma arki doontaan